بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo oo xilligan si toos idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga isku xiraha ganacsiga iyo arrimaha bulshada uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona imtixaanka qabuulka ee jaamacadda Green Hope oo ay maanta u fadhiisteen ku dhawaad 400 oo arday. maamulka degmada Howlwadaag ee ganacsatada suuqa Bakaaraha oo maanta ku guuleystay hirgelinta wadooyin waaweyn oo gaar degmadaasi. shacabka ku nool wadanka Isbeena waxa ay ka dhaga fureysteen xayraadihii lagu soo rogay dadka wadankaasi. shirkadda abaalmarinada ee Nobel Peace Prize-na waxa ay sare u qaaday qiimihii abaalmarinada ay bixin jirtay. وهابينما أحد يبحث سنين فوضى ينوي ستاريخنا يكون بيجنتهاي تضوي إلى باتن كبيس سجالات لوضع كون إلى باتن كوركي ودان soo gudbinta warka habeen BCTV waxaa gacan ka geystay Gacal Polyclinic Center oo doona adeeg caafimaad dabataysan iyo shabaar casri ah xaruntooda waxay ku taalaa ka soo horjeedka saldhigga Waaberi ee wadada Makka al-Mukarrama Gacal Polyclinic Center waxa qabtiraha baahidaada caafimaad imtixaanka qabuulka ee jaamacadda caalamiga ah ee Green Hope ayaa maanta waxa uu fadhiistay ku dhawaad 400 oo arday wariyahayaga Mahad Cabdi Maxamuud ayaa faahfaahinaya in ka badan 300 oo arday ayaa u fariistay imtixaanka qabuulka ee jaamacadda Green Hope ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 imtixaankan oo ujeedkiisu ahay si loo hubiyo heerka waxbarasho ee ardayga ku soo biiraya jaamacadda Green Hope ayaa lagu qabtay gudaha jaamacadda magaalada Muqdisho ugu horeyn maamulaha guud ee jaamacadda Green Hope Professor Mustafa Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay diyaar garowga guud ee jaamacadda ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 isagoona dhanka kala tilmaamay shuruudaha looga baahan yahay ardayga ku soo biiraya jaamacadda waxaan waayahan u diyaar garownay sida ardayda cusub u qaabilaynay waxaan soo gaartay 340 arday shay ayaan u dhignay xaflad oo soo dhaweyn ah maanta waxaan ku bilownay imtixaankii qabuulka annaga u qaadi doona qayb Facebook hore maanta fadhiistay insha Allah ardayda qaadana waxa kamid ah ardaydii ku imtixaankii maanta ku baastay oo hadii miisaal shahaada aan siino wasaaradda geeli kala magacooda annagoo ka fiirnay shahaadooyinka noo imaan doonaan iyo dhibcaha ay hadda haystaan arday dhacay ma qaabilin Green Hope ahaan laakiin waxaan qaabilnay intii baastay oo wasaaradda caddeyn ka haysatay 340 ka arday insha Allah waxaan qiyaasi doonaa si badnaan doona laakiin hadii sanad dugsiyeed dib u dhacay xilliga corona dib u noo riday waxaan ku sii bilownay inaan sii bilowno marka sanad dugsiyeedka maadaama uu bilow yahay 2020 ilaa 2021 ugu dambeyn ardada u fariistay imtixaanka oo BCTV dareenkooda uga warbixiyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta u fariistaan imtixaanka qabuulka si ay ugu gudbaan waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda wallahi aad baan ugu faraxsanahay in waxbarashadeedii halkan ka soo gaaro kuleyba waa waxaan ku hamuunahay mar walbana waxbarashada waa waxa dalka iyo dadkeena anfacayo anigana nolosheena anfacayo marka waxaan ugu mahad celinayaa waalidkayga intaan soo garab taagnaa igu soo dhiirigeliyay inaan wax barto ilaa heer jaamacadeen ila garab taagan inaan wax barto ku qanacsan wallahi aad baan ugu faraxsanahay kuleyba waa isku qanacsanahay ninka raggaana kuleyba doodamiya dufaan yahay waa mar haddii imtixaan la galo qof walba wuxuu rajaynayaa waa inuu guuleysto waxaan rajaynaynaa inaan guuleysto insha Allah dhammaanna waan u mahad celinayaa ardayda ka soo qayb gashay imtixaankaas aad iyo aad jeclahay inay la wadaago waxaan jeclahay kuliyadda dhaqaalaha sababta aan ku doortay way caddahay maadaama wadankeena wax soo saar badan leeyahay dadka inta badan dhalinyarada inay ku baraarugsaneen inay wax soo saartaan wadagooda oo dhaqaale leeyahay wax soo saar fiican uu leeyahay waxaan aniga ugu doortay in wadanka wadan kor loo qaado mudan beeraha hadday noqoto shidaal hadday noqoto wax walba wax kasto in ishaag laga soo saaro dalkeena oo maanta go'aankaas aan qaatay dareen aan soo koobi karin dabcan waxa waaye waan sugay examkan inaan galo dabcan waan rajeynayaa in macnaha natiijo fiican aan ka helo waxbarashada sideedaba ma dhamaato heer bay ku gudbisaa hadda heer baan bilaabayaa ilaa heer kalena waan rajeynayaa inaan sii dhameysto
aad iyo aad farxad waxaan ku faraxsanahay horumarka aan maanta gaaray waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta inta la soo gaarsiisay waxaan jeclahay intan ka badan inaan sii wado public administration way maxaa ku dooratay deena la wadaag waxaan ku doortay inaan maadada aad u jeclahay inaan sii wato oo kaliya waan jeclahay miyaa ku doortay mase saaxiibtaa waa doortay mase maadooyin inta badan lagu daraaseeyay ayaad fahansantahay maadooyinkaas ayaan fahansanahay والله هذه أنا فرحسنا واي قفك وحبرشة دال كاركو كسو بحية أدري مكرمكو أنت سو جارير جامعات waxaa ku doortay waxaa ku biiraya accounting and finance macnaha maadadaas aan waa jeclahay ilaa PhD inaan sii wata jeclahay maamulka degmada Howlwadaag iyo ganacsatada suuqa Bakaaraha waxa ay maanta ku guuleysteen dhismooyinka wadooyinka gala suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho xasan sid cali socdaal ayaa faahfaahinaya suuqa weyn ee Bakaaraha waxa uu halbowlu u yahay ganacsiga guud ahaan geeyiga Soomaaliya waxa uu soo maray marxalado kala duwan tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Maxamed Siyaad Bare balse xilligan waxa ay muuqataa inuu ka soo kabanayo dhibaatooyinkii hore oo ay ka mid tahay dhismayaal burbursan dhac iyo boobka hantida shacabka qaar iyo waliba burburka wadooyinka dhiiqada iyo biyaha dhex egaagi jiray waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday hirgelinta wadooyin heer caalami ah kuwaas oo lagu xardhay interlock lana jaan qaada dunida casriga iyo suuqyada caalamiga ee caalamka waxaana lagu guuleystay hirgelinta wadooyin dhowr ah oo dhex mara suuqa weyn ee Bakaaraha kuwaasi oo dhammaantooda ah interlock waxa kaalin weyn ka qaatay maamulka gobolka Banaadir kan degmada Howlwadaag iyo ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha xaflad abaalmarin kala duwan lagu siinayay qaar ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha maamulka degmada Howlwadaag ayaa waxa lagu qabtay gudaha caasimadda Muqdisho sababtu waxa lagu guuleystay howlihii dhisida wadooyinka dhexmara suuqa weyn ee Bakaaraha oo dhammaantooda ka samaysan interlock taas oo hanaan casri ah mid ka mid ah ganacsatada ka soo qayb galay xafladaas kana mid ah guddiga ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwan oo suuqu soo maray iyo heerka maanta uu marayo far badan oo 50 sano ah laga joogo waxa xaafadaas qarqiyay biyo galeen iyo roob iyo meel walba biyihii daadadka waa la isku soo xiray qof walbana waxay sameysay maaragtay buuro iyo waxyaabo kala duwan sidaas darteed gudoomiyaha cusub ee degmada mudane Mustafa waxa uu ka qabtay howl aad u culus oo dadka degmada iyo dadka gaar ahaan dadka xaafadda Bakaaraha ku nool ee aad ugu rayaaqeen taasoo ah inuu xaafadda oo dadka dhan ay biyaha isku xiri jireen berigii hore uu hadda ka dhigay mid siman oo biyaha ay hal dhinac aadaan taasoo maaragtay xaafadda ka dhigtay xaafad maaragtay casri ah oo la jaan qaadi karta maaragtay ishaga dalalka adduunka runtii xaafaddaas gudoomiyuhu wuxuu sameeyay oo nagu dhiirigeliyay inaan xaafadda gashano qalabkan casriga ah ee loo yaqaan interlock waxyaabaha ugu horumarsan ee maanta caalamka laga isticmaalo horumarka ka dhaliya magaalooyinka ayuu ka mid yahay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo ah Mustafa Ali Qeyre ayaa uga mahadceliyay qabsoomida hawshan oo ay qayb ka ahaayeen ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha iyo waliba maamulka gobolka Banaadir ka maamul ahaan runtii annaga hadaanan idinka garab aan nasiin lahaynina wax aan qaban lahayn oo hool ah ma jirto laakiin cadeyn waxay u tahay maanta hadaan nahay maamulka degmada Howlwadaag hoolihii aan soo qabanay inaad leedihiin waa ku mahadsantihiin waxaan isleeyahay dadka qaarkood oo maanta laftirkooda qada sharaftan ugu maamuus maalmihii hore markii aan dhahayna meeshaan waxaa la saaraa interlock ayaga laftirkooda dagaal inagula jireen laakiin maanta waxay ogaadeen hoosha iyo waxa ay tahay iyo siday tahay ogaadeen marka waa ku mahadsantihiin annagana dadaalka waa sii wada doonaa hadduu Ilaahay yiraah maxaa la yiraahdaa maamulka gobolka Banaadir waa ugu mahadcelinaynaa suuqa weyn ee Bakaaraha wadooyinka dhexmara hadda waxa ay la jaan qaadayaan dunida inteeda kale kama marna dhismayaasha agabka iyo alaabooyinka lagu iibiyo waxa uu kaalinta labaad kaga jira suuqyada kale ee Afrika shacabka ku nool wadanka Isbayn waxa ay ka dhaga fureysteen awaamirtii ka soo gaadhay wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi
dowladda Spain ayaa ka codsanaysa mas'uuliyiinteeda magaalada caasimadda Madrid inay si buuxda u dhaqangeliyaan xayiraadda cusub ee lagu soo rogay si looga hortago faafidda xanuunka COVID-19. wasiirka caafimaadka ee waddanka Spain oo hadlay ayaa sheegay in wali aysan sidii la rabay u dhaqangelin xayiraadihii lagu soo rogay dadka reer Spain. maalmo ka hor ayaa magaalada Madrid waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo lagu soo horjeedo xayiraadaha cusub ee magaaladaasi lagu soo rogay. waddanka Spain ayaa ka mid ah dhowr waddan oo ku yaala qaaradda Yurub kuwaasi oo ku soo laabtay COVID-19 iyadoo haatan si weyn loo kala ilaalinayo qeybaha kala gedisan ee bulshada. ugu dambeyn shirkadda abaalmarinada ee Nobel Peace Prize ayaa waxa ay sare u qaaday qiimaha abaalmarinadii ay bixin jirtay. Igraan Bashiir ayaa faahfaahinaysa. dadka ku guuleysta sanadkan 2020 bilada nabadda ee Nobel Peace Prize loo yaqaano ayaa heli doona lacag ka badan midii hore sida uu shaaciyay guddiga bixiya biladaasi. guuleystaha waxa uu heli doonaa lacag dhan 10 milyan oo koror marka loo barbar dhigo sanadkii hore. waxaa dheeri ah $1 milyan oo dollar. Larry Sagerstein agaasimaha hay'adda Nobel ee bilada bixisa ayaa u sababeeyay kororka lacagtani xasilooni maaliyadeed oo la gaaray. sida ay sheegtay hay'adda laga soo bilaabo sanadii 2012 raasumaalkeeda ayaa sanad kasta sameynayay kobac dhaqaale oo lagu qadaray 9%. bisha Oktoobar ee nagu soo aadan ayaa la shaacin doonaa guuleystayaasha bilada nabadda ee sanadka 2020. munaasabadda abaalmarinta ayaa dhici doonta 10 Diseembar. Nobel Peace Prize oo la bixiyo sanad kasta ayaa lagu dhiirigeliyaa dadka wax ku soo kordhiya sagaxadda suugaanta, tan caafimaadka, fiisigiska, kemistriga, nabadda iyo dhaqaalaha. guud ahaan akhyaaraya warkii aad kala socoteen TV-ga isku xiraha ganacsiga iyo arrimaha bulshada waanaga inta. warka waxaa soo saaray Igraan Bashiir anigoo Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa idinkugu waramayay. tan iyo warkan war la mid ah intiinu dib ugu kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.